Waana wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina halkaani waa warbaahinta Baraawe qodobada maanta warkayna Baraawe news ugu doorka roonne waxaa kamid ah daawadayaal gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Umar Finish ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Cabdicasiis dalka Mareykanka ayaa caabuqa COVID-19 oo ku sii faafay dad gaar ah 760,000 oo qof oo caabuqu oo ku dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya asaguna waxa lagu soo waramayaa inuu muddo hal sano loo kordhiyay muddo xileedkiisa baarlamaanka labada qalbiyeed federaalka Soomaaliya ayaa maanta u baaqday caabuqa Mareykanka dartiis kala fadhigoodii toddobaad intaas in kala Baraawe news oo faahfaahsan daawadayaal ku soo dhawaada waa maalinimo Isniin ah taariikhdu ay ku beegan tahay 20-ka bisha Abriil 2020 aana ku bilownay daawadayaal gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Umar Finish ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha degmada Shibis kadib markii lagu helay musuqmaasuq iyo wax isdaba marin afhayeenka gobolka Banaadir ayaa sheegay in gudoomiyaha degmada Shibis Cabdiraxmaan Sayid Cali loo taxaabay xarunta demi baarista ee gobolka Banaadir CID iyadoo hadduu isdabamarintaas ku cadaantana sharcigu wuxuu ka qaba lama sii doono sida uu sheegay afhayeenka gobolka Banaadir dalka Mareykanka ayaa caabuqan COVID-19 oo ku sii faafaya dad gaar ah 760,000 oo qof oo haleelay caabuqan COVID-19 iyadoo dhimashaduna ay sii cagacaynayso 40,000 kor u dhaaftay dowladda Mareykanka ayaa weli ku dadaalaysa si wax uga qaba lahayd xanuunkan faraha baan ku haya dalweynaha Mareykanka iyadoo gobolada kale ah New Jersey iyo Massachusetts iyo Pennsylvania ay caabuqan oo fara baan ku hayo iyadoo gobolada Soomaalidu degan tahay iyaguna xanuunku ku sii faafayo madaxweynaha Afghanistan howlwadeeno ka shaqeeya madaxtooyada dalkaas ayaa waxaa lagu soo waramayaa in laga helay caabuqa COVID-19 laba kiis ayay hore loo xaqiijiyay dowladda dalkaas balse wargeyska New York Times ayaa sheegay in tirada dadka gaaraya 40 qof oo laga helay dowladda ayaa weli ka hadlin arrintaas iyadoo aanan welina hubnayn madaxweynaha dalkaas Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ku dhacay cudurka COVID-19 warar lagu kalsoonayn ay sheegayaan Masar Ghani oo da'diisu ay tahay 70 sano jir ayaa waxaa la sheegay inay qayb ka mid ah calooshiisa oo xanuunka kansarka ku dhacay 1990 madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagaren asaguna muddo hal sano ayaa loo kordhiyay muddo xileedkii madaxweyne Cabdicasiis Laftagaren iyadoo ka dhigantaas madaxweynaha iyo baarlamaanka Koonfur Galbeed inay hal waqti isla dhacayaan ujeedada muddo kordhinta xildhibaanada ay madaxweynaha ay u sameeyeen ayay ka dhigan inuu madaxweynuhu iyo baarlamaanku waqtigoodu ay hal mar isla dhamaanayaan Cabdicasiis Maxamed Laftagaren ayaa waxaa la doortay bishii December ee 2018 baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa kala fadhigoodii toddobaad ayaa baaqday iyadoo laga cabsi qabo xanuunkan Mareykanka dunida faraha baan ku haya gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa lagu sheegay inay go'aankan uu ka dambeeyay markii wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ay talooyin aad u waaweyn ay soo saartay oo looga hortaagayo xanuunkan Mareykanka dunida faraha baan ku haya ee COVID-19 iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadku ay sheegtay inaysan dadku badan meelaha isugu imaan iyadoo laga hortagayo xanuunkan faraha dunida ku haya ee COVID-19 daawadayaal warkayni caalamka Baraawe news intaas ay ku egyahay dhinaca farsamada waxaa noo fanajinay Saki anigu Cabdiraxmaan warka ayaan idin socodsiinayay faafinta warka waxa xaqiina sidaas iyo nabadiino daawadayaal